Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT-ga iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu waa Cabdinaan Ismaaciil. Emailka sida caadada ah info@sologroups.com. Sidaan hore kaga ballan qaaday waxaanu bilowday luqadda Ingiriiska ama English language kadib markii ay soo weydiiyeen arday aad u fara badan oo shabakada wax ka barata. Tabcan waa luqadda ugu muhiimsan adduunka, dhanka waxbarashada, dhanka businesska, dhanka shaqada, dhanka wax walba. Waa luqadda number 1ka. Marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah in xilligan ku jirno barashadan aan ka bilaabi doono a basic meesha ugu hooseysa ama a beginners, a bilowga. Luqadna waxay muhiim tahay haddii aad taqaanid iyo haddii kaleba in laga soo bilaabo meesha ugu hooseysa ee bilowga. Marka luqadda Ingiriiska keligeeda ma ahan ku hadlidda. Waxaa laga yaabaa qof luqadda Ingiriiska si perfect ugu hadla isla markaana aan aqoonin naxwaha, hawlaha sida loo sameeyo, eray bixinta iyo wada hadalka sida loo sameeyo. Marka ugu horeyn waxaanu ka bilaawnaa beginners. Waxaanu sameynay file ku xiran shabakadda oo dhanka Englishka. Marka waxaan ku eegi doonaa ugu horeyn grammarka oo ah naxwaha, functionka, waxaan ku eegi doonaa vocabulary, waxaan ku eegi doonaa ugu dambeyntii dialogues ayaan ku eegi doonaa. Marka waxaan isku dayaynaa xilliga aan wadna casharka in luqadda Ingiriiska iyo af Soomaaliga aan isdhexgelin, laakiin inta badan waxaanu isticmaali doonaa luqadda Ingiriiska sababtoo ah haddii aad doonaysid in aad baratid luqaddan muhiimka ah, waxaa muhiim ah mar walba dialoga ama wada hadalka, kalima wada hadalka in uu ahaado luqadda Ingiriiska inuu ahaado. Marka waxaanu eegaynaa grammar oo naxwo ah, functions waa hawlaha, wixiiba functionka markuu dhacayo waxaa lagu leeyahay waxaa meeshaas ka dhacaya function. Hadda luqaddii Soomaaliga ayaa inteeda badan waxayba isu bedeshay sidii Ingiriiska oo kale, eryo aad u fara badan ayaa loo isticmaala. Marka qof ayuu wuxuu ku leeyahay caawa function ayaan u socdaa. Marka waa hawlaha. Kan waa vocabulary oo naqaano waa eray bixiye ama eray bixin. Ugu dambeyntiina dialogue. Marka waxa ugu horeeya sameynaysa waxay tahay bugaag badan ayaa ku jira shabakadda, kuwa kalena insha Allah waa soo diri doonaa. Fadlan isku day in wixii aan sameynay aad samaysid, aad ku celisid, tijaabo isku samaysid, kadibna hawshalka aan ka sii wadno. Sida caadada ah shabakada ayaad galaysaa sologroups.com. waxa ugu horeeya aad samaynaysid waxaad leedahay login ayaad leedahay. Haddii aad ka diiwaan gashan tahay usernamekaagii passwordkeeda isticmaalaysaa. Haddii kale shabakadda qaabka laysaga diiwaan geliyo waxaad ka heli kartaa videoga halkan yaal ayaad ka ogaan kartaa. Login ayaad leedahay. Waxaan leeyahay waxbaa ku save garayn. Kadib waxaan aadayaa English ayaan aadayaa, tutorial ayaan riixayaa. Markii aan riixo waxaad ku aragtaan shabakadda sologroups bilowga waa beginnerka. Marka waxaa laga yaabaa dad qaarkood ama arday qaarkood inay yiraahdaan halkan kama bilaabi karo sababta waan aqaana, laakiin waa muhiim in halkan laga bilaabo. Wuxuu ku leeyahay welcome to your course. Marka koorsooyinkan ama casharadan aan baran doono insha Allah waxay isugu jiraan kuwo PDF ah, video ah, cod ah, oo aad u fara badan. Marka practice badan ama tijaabooyin aad u fara badan ayaanu samayn doonaa. Ugu horeyn halkan waxaa yaala welcome to your course. Halkan waxaa yaala home. waxaa noo yaala kuwii aan ku soo arnay albaabka hore oo ahaa grammarka 3 lesson, functionka 3 lesson, vocabularyga waxaanu haysanaa 5 iyo ugu dambeyntii dialogue waxaanu haysanaa 3. Marka luqadda Ingiriiska halkan ayaa laga bilaabaa, sidan ayaa loo bilaabaa. Marka ugu horeyn dhanka grammarka isku mid ayuu shaqeeya. Waxaan leenahay lesson 1ka ayaan eegaynaa waa alphabet. Alphabet waa naqaanaa, waa meesha wax walba ay ka bilowdaan, qof walbana wuu yaqaanaa. Marka waxaa jira ereyo tabcan luqadda Soomaaliga aan ku jiran ayaa jira. Tusaale ahaan A equals kan waxaa leedahay apple ayaa la yidhaahdaa qaabka loogu dhawaaqo. Waana muhiim sababtoo ah Soomaalidu labadan erey dhib ayay ku tahay oo ma leh luqadeena, kuma jirto P kuma jirto. Marka ma oran karo apple, ma oran karo. Waa inay yidhaahdaa apple aan yidhaahdaa P waa in la yidhaahdaa kan. Markaas waa muhiim apple. Kana B apple-ku waa tufaax tabcan. B-na wuxuu ka imaanayaa shinida. B waa a cat ama waxaa la yidhaahdaa mukulaal ama bisad luqadda si loo yaqaano dog waa eyga.
elephant iyo ayuu ka imaanayaa. F flowers, a giraffe waa geriga. Guri house, kana insect waa cayayaanka. Japan marka waa muhiim, p halkan ay soo gashay waddanka Japan la yidhaahdo. Kan waa boqorkii oo ah k equals king. L na waa lion. M na waa mouse. N na waa nose. Kan o waa orange. P na waa pig ama doofaar. A q wuxuu la mid yahay queen boqoradda. R wuxuu la mid yahay rainbow ama xilliga roobka waxaa loo yaqaanaa qaansa roobaad ayaa loo yaqaanaa. S waa snake. A T train. U umbrella. V equals van gawaarida xamuulka yar qaada. W waxay la mid tahay window ama window qof walba oo yaqaana dariishadda iyo yaqaana ama daaqadda. X waxay la mid tahay x-ray. Y waxay la mid tahay yellow ama midabkan hurdiga ayaa la mid tahay. Z-na waxay la mid tahay zebra ama Z ayaa la yidhaahdaa North America ayay la mid tahay. Marka kan waxaan filayaa inaan fahmi karo. Marka A halkan ay ka bilaabata halkan ayuu ku siinayaa. Haddii aad doontid F to K halan ayuu noqonayaa kuu soo yaraynayaa. Marka waa a GIF iyo flash ayuu ku dhisan yahay systemka. Kadib kan waa isla fahmi karnaa. Ku laabo baro wuxuu yahay. Iminka aad lesson 2ga functionkiisa. Marka wuxuu ku leeyahay alphabet ayaan ku jirnaa bilowgii. Waxaa halkan ku qoran what is the right letter? Calaamad su'aal. Ku qor halkan waayo waxaa lagu soo qoray halkan erey ayaa ku qoran, erey ayaa ka maqan. Marka wuxuu ku leeyahay what is the right letter? Waa maxay kan saxa ah? Qoraalka saxa ah hal letter ayaa ka maqan. Click on the right letter to start word. C ereyga ud bilowdid waa inaad ku qortaa xarafka saxa ah. Dabcan waxaa ku qoran elephant waxba macno yeelan maayo laakiin waxaad u baahan tahay in aad ku dartid wuxuu noqonayaa elephant ayuu noqonayaa. Kadibna wax kale ayaa kuu soo baxay jiir ama doole ayaa kuu soo baxay. Marka waan fahmi karaa wuxuu noqonayaa isla markii mouse ayuu noqonayaa. Kadibna waxaa kuu soo baxay kii haddaan soo aragnayo biiga ahaa sana aad u raacaysa ereyada luqadda ingiriiska. Marka kadibna wuxuu soo baxayaa insect ayaa soo baxaya halkan. Marka I iyo L iska ilaali isku qaldin sababtoo ah haddii isku qaladid waa kugu soo laabanaya L-ka waa kas insect kan ayuu noqday. Waxaa kuu soo socda iminka R oo rainbow automatically waad garan kartaa sawirkii aad isu keenaysaa iyo kan rainbow. Kanna waa a queen waa boqoradii waa intaan soo aragnay. Windowna waa shaashadii. Kadibna waxaa soo baxay sankii oo la yidhaahdo a noise oo sana enka sana ayaa saan u soo baxay. Kadibna waxaa soo baxay x-ray ayaa saan u soo baxay. X-ray markaad tirahdid waa x inaad raadisaa. San halkan ayaa laga soo bilaabaa kadibna san ayaad u imaanaysaa x-ray. waxaa ku xiga giraffe ayaa ku xiga. giraffe ka bacdi waxaa ku xiga lion ayaa ku xiga halkan. lion kadib waxaa ku xiga snake ayaa ku xiga. Marka micnaha waxaan filayaa in aad fahmi kartaan oo sidan u raaci kartaan sababtoo ama doonayo waqti inaan ku lumina kan kaliya. Ugu dambeyntii waxaan riixayaa umbrella kana waan sii raaxayaa. Marka kii koowaad iyo kii labaad waan aragnay. Kan saddexaad maxaa ku jira waa sii bedelaya. Iminka wuxuu ku leeyahay click on the letters in alphabetical order. Marka aad ayuu muhiim u yahay haddii aad eegtid qaabka aan ugu dhawaaqayo. Haddii aad eegtid ereyga waxaan leeyahay alphabetical order. Waxaan kala saaray p oo kan ah iyo b ayaan kala saaray. Marka waxaan leeyahay p kan waxaan leeyahay b. Marka saa ayuu kala baxaya. Marka haddii aad soo raacaysa halkan ayuu soo wada gelayaa. haddii aad soo baratay qaabka alfabeetada ay u shaqayso tabcan a aad ka bilaabaysaa waa sii raacaysaa b waa naqaanaa c ayaan ku daraynaa a b c d saan ayaan soconaynaa e ayaan ku soconaynaa a b c d ilaa iyo meesha ugu dambaysa oo z saas ayaa kusii wadaysaa. Kanna waqti ku lumin mayno waa la fahmi karaa qof walba uu samayn kara ilaa uu ka dhammeeyo. Marka waa uu sii adkaanayaa. Iminka waxaanu aadaynaa functionka. Marka functionka macnihiisu wuxuu yahay waa hawlaha waxa dhacay la qabto waan ka hadalnay. Marka functionkan haddii saan idhaahdo wuxuu ku leeyahay at describing actions. Marka maxaan ku macnayn karnaa? Waxaan ku macnayn karnaa sharxidda falalka ayaa la yidhahdaa luqadda afka Soomaaliga. Wuxuu sharxayaa fal ama action wax dhacay. This is actions.
falal ayaa dhacay waxaa dhacay oo explanation ku samaynaya ama u samaynaya marka waa muhiim in ereyada ingiriiska intooda badan aan isticmaalno xilliga aan ku jirno casharka marka wuxuu ku leeyahay click on the star button riix ayuu ku leeyahay star buttonkan si uu bilowdo waxaad samayn lahayd waan riixay marka waxaan aragnaa description action waxaan John qofkii uu ahaa eats wuxuu cunayaa kaliya ayaa socda cake John wuxuu cunay a cake marka a subject wuxuu noqonayaa noun oo aan naqaano oo ah magac kan eats verb ayuu noqonayaa kan wuxuu noqonayaa object noun ayuu noqonayaa marka kan waa muhiim wuxuu leeyahay John eats a cake marka ma dhihi karno tabcan cake eats John ma dhihi karno marka John eats cake ayuu ahaa kanna wuxuu sameeyay description action kale ayuu sameeyay tea shaah abid abaya iyo Mr Jones marka isaga ayaa isu imaanaya Mr Jones drinks tea Mr Jones waa kan waa subject is a noun magac drinks waa kan waa verb ugu dambeyntii etiga waa object noun ayuu noqonaya magac ayuu noqonaya marka Mr Jones drinks a tea ayuu ku leeyahay Mr Jones oo shakhsigan ah wuxuu cabayaa shaah ayuu cabayaa marka ma oran kartid Mr Jones tea drinks ma dhihi kartid wuxuu noqonayaa Mr Jones oo subject noun-ka magaca ah Mr Jones waa magacii drinks waa verb waa muhiimkan drinks oo verb ah waa fal ama falka la sameeyo fal ayuu sameynaya action ayuu sameynaya marka wuxuu ku leeyahay Mr Jones waa magac drinks waa falka la sameynaya verb waa falka la sameeyo tea kan waa object noun oo ah magacii la sheegayay wixii la qabanayay marka waxaa ku xiga lesson 2 ayaa ku xigta kan waa muhiim describing actions wuxuu sheegayaa isla sharxidda falalka ayuu sheegayaa marka sawiro badan ay halkan ku yaala ilaa hoos ayaad siyaadi kartaa ilaa screenka uu ka weyn yahay marka waxaa la doonayaa shakhsiga si uu ku barto waa in ereyada ay micno yeeshaan ay isku aadaan tusaale ahaan waxaa lagu leeyahay riix sawirka si aad u samaysid a sentence wuxuu ku leeyahay click on the picture to make a sentence riix sawirka si aad u samaysid marka maxaan leeyahay ana waa gabadhii fries waxay dubaysaa chipska ay dubaysaa marka ana fries chips waa ujeeda isla markii uu isbedelay shaashada flashka uu isbedelay waxay samaynaysaa in ay dubto ama a fries ay ka dhigto chipska ana fries chips marka maxaa ku xiga haddii aad eegtid luqadda ingiriiska qaabka isku aadayso sidan ayaa muhiima Mrs Blake shakhsigan la yidhaahdo waxay baraysaa xisaabaadkii waa kaas sax Mrs Blake teach maths Mrs Blake waatan waxay baraysaa waa macallimad baraysa xisaabaadka ama xisaabta halkan imow halkan waxaa ku yaala Fred oo magac ah drives cars marka ma dhihi karna cars drives Fred ma dhihi karna drives Fred ma dhihi karna Fred drives cars waa kan ujeeda wuxuu ku dhex jiraa Fred ayaa wadaya gawaarida sababtoo ah waanu baran doonaa hadda in aan ka hor dhac dooni maayo waxaa la yidhaahdo a singular iyo plural la yidhaahdo oo p ka bilowda marka kan waa plural saa ujeedaan s ayaa raacsan kadibna halkan waxaa yaala brings uu keenaya cuntadii kabaryeri ayaa la yidhaahdaa ama waiterka qofka si u yaqaano luqadda afka soomaaliga aad ayay u kala duwan tahay the waiter brings food waiterkii wuxuu keenayaa cuntadii ayuu keenayaa marka the waiter brings a food sidan ayay isugu aaday ugu dambeynta halkan waxaa yaala Tom books carries marka isla markii waad garan kartaa sida lagu saxi lahaa Tom carries books waad ujeedaa shakhsiyan Tom la yidhaahdo wuxuu wadaa buugaagtii ayuu wadaa markana waan fahnay marka haddii aan tago lesson 3 waxaa halkan yaala describing actions oo ah sharxidda falalka wuxuu ku leeyahay write these a sentence using the verbs provided when you finish a click answers ayuu ku leeyahay kaasoo ah qoraaladan sentenceska adigoo isticmaalaya verb lagu siiyey xilliga uu sax noqdana aad isleedahay waa sax ama aad dhamaysid ansarka marka sida ku qaba ayuu ku leeyahay ama jawaabta ku samee
marka halkan waxaa yaala tusaale ama example ayaa lagu siinaya waxaa loo jeedaa gabar waxaa loo jeedaa ubax ama flowers ayaa loo jeedaa iyo sankeeda u dhow marka wuxuu noqonayaa Wendy smells flowers ama gabadhan Wendy la yiraahdo noun waa magaceeda waxay urinaysaa smells marka waxa xusuus mudan luqadda ingiriiska a content wax la yiraahdo ayaa jira meeshii marka ku haboon unbay gashaa kaasna waan ka hadli doonaa mustaqbalka insha Allah aad ayuu muhiim u yahay marka waxa lagu leeyahay Wendy smells flowers kadib waxaa lagaa doonayaa adiga inaad halkan soo fadhiisato halkan waxaa yaala Mary kaliya lagu siiyey oo gabar ah to watch daawanaysa marka maxaa samaynaysaa waxaad leedahay aad ku daraysa waxaad leedahay Mary adiga ayaa lagaa doonayaa kadib waxaad leedahay watches waxay daawanaysaa a television طبعا television haddii aan saxno marka haddii aan hoos aado Mary watches television haddii aan hoos aado waxaan leeyahay answer ayaan leeyahay waad ujeedaa Mary watches television oo ah remember to put the full stop ayaa lagu yiri at the end of each sentence kana marka waxaan doonay inaan isla aragno xilliga aad qoraysid luqadda ingiriiska waxaa muhiim ah xilliga sentencega ama waxa qoraysa ku dhamaado waa in aad a full stop ka dhigtaa sababta waxaad sheegaysaa wuu dhamaaday this sentence is finished inaad tirahdid maxaa ku xiga waana soo aragnay John to carry ayaa lagu leeyahay marka wuxuu noqonayaa طبعا waxaan ku bilaabnay capital letter John waa magac noun kadib waxaan leenahay carries marka kan ay ka soo qaadan to carry waa lagu sheegay waa future marka ma doonayo inaan sii galno grammarka ama naxwaha inaan sii galno hadda sababtoo ah waa basic oo bilow marka John carries space ay leedahay books iminka waxaanu samaynaynaa full stop ayaanu samaynaynaa hoos ayaan imaanayaa answer ayaan leeyahay maxaad aragtaa John carries books waan fahmi karaa marka maxaa ku xiga Jake to love marka Jake inuu jeclaado ayaa lagu yiri marka waxay noqonaysaa طبعا Jake oo sidan ah loves ama wuxuu jecel yahay marka jecelka nooc kale ma waa jecelka uu jecel yahay cheska halkan san u yaala cheska uu jecel yahay calaamatu waxaan full stop ayaan leeyahay answer ayaan leeyahay ujeeda Jake loves a chess marka waad ujeedaa uu jecel yahay cheska uu jecel yahay saas ayaa loo sheegay u dambeyntii halkan waxaa yaala Mrs White to iron Mrs White oo akaawiyadaynaysa ayuu noqonayaa ama ironing ayay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa Mrs waa magac White sidan ah Miss White iron kadibna clothes ama dharkii calaamada su'aal saan full stop waa ka deliberate qalada marka wuxuu noqonayaa irons طبعا waa ugu talagalay inuu qalkasan u soo baxo sababtoo ah iron ma dhigid halkan ayaa laga siiyay iron marka waa inaad noqotaa halkan uu noqdaa iron sidan u noqdaa oo aad tiraahdaa answerka ii sax aad tiraahdaa waa kaas marka tan waad qaladay ugu talagalay aad u qaladay sababtoo ah ma oran kartid kan sababtoo ah love kii halkan ma soo gelin carry waana bedelay carries marka wuxuu noqonayaa kan irons Mrs White irons clothes marka waxaan filayaa in qaabkan si fiican u fahanteen marka functionkii wuu dhamaaday waxa halkan yaala vocabulary marka vocabulary aad ayuu muhiim u yahay waa eray bixiye ama eray bixin lesson ugu horeeya hadii aan saan riixo waxa soo baxay days of the week waa muhiim bisha March ay noqonaysaa maalmaha Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday waa days of the week maalmaha asbuuca ama sitimaanka luqadii lagu yiraahdo afka Soomaaliga halkan ay noqonaysaa marka maxaa ku xiga lesson 2 waxaa ku xiga days of the week marka click on the days of the week on the right order starting from Monday hadda ayaa lagu leeyahay riix ayaa lagu leeyahay maalinta asbuuca iskuna aadi adigoo ka bilaabaya Monday oo ah isniinta marka hadii aan aado Monday waxaan leeyahay maxaa ku xiga طبعا Tuesday ayaa ku xigta waxaa ku xigta Wednesday Thursday Friday Saturday iyo ugu dambeyn Sunday ayaa ku xigta marka haddii aad doontid reset ama restart ayaa ku samayn kartaa marka wuxuu noqonayaa Monday
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday ayaa ugu dambaysa. Marka maalmaha days of the week, maalmaha asbuuca sidan ay noqonayaan waa days, maalmaha day keliya maaha. haddii aan eegno kan saddexaad, kan waa muhiim. wuxuu ku leeyahay days of the week ayaan ku jirnaa weli. put ayuu ku leeyahay, but kuma dhihin, waa p ayuu ka bilaabanaya. The letters for each day of the week in the right space, full stop markuu dhammaado, a capital letter ayuu ka bilaabanaya. When you finish, click answers, incorrect letters will be deleted. oo macnaheedu yahay xarafka asaxa ah ee asbuuca meeshii loogu talagalay geli. markii aad dhamaysid waxaad riixdaa answers, halkan riix. kii qalad ah isla markii waa laga tirtiraya ama delete ayaa lagu samaynaya. markan waa muhiim. waxaan arki karnaa ugu horeyn isheeda ku dhacaya ayaan ka bilaabaya. wedness aan ka boodaya. wedness saasa a day. marka bal sidan markuu yahay, haddii aan sidaan yidhaahdo wax ka qaldan ma leh, inta kale waa saxsan yihiin. marka haddii aan idhahdo halkan waxaan u jeedaa waxay noqon kartaa maalmo kala duwan, laakiin waxaan arkaa capital letter ay ka bilaabaysaa mar walba. waxaan arkaa in uu yahay Saturday kan. Saturday way isla isticmaalayaan Saturday. weli waa ii sax. iminka waxaan arkaa halkan uu yahay Thursday inuu yahay. capital letter ayaan ka bilaabayaa. TH ayaan leeyahay. R ayaan leeyahay. S ayaan leeyahay. A ayaan leeyahay. Y ayaan leeyahay. marka kadibna halkan Thursday markii aan eego waxaan arkaa halkan in uu ii yahay Monday. capital letter isu bedelayaa Monday. oo sidana haddii aan idhaahdo correct ayuu ka dhigayaa. marka waxaan kaloo aragnaa halkan in ayuu ku jiro. waxaan eegayaa marka Friday. markuu sidan u socdo tabcan waxaama fahmi karnaa inta kale ee dhiman ee u hartay maalmaha oo dhan waan wada samaynay. waxa keliya oo haray iminkaan aragnaa halkan waxa yaala Saturday, Wednesday. waxaan eegaynaa halkan inaan ka dhigno Sunday. Y aan idhaahdo correct. marka mid walba waan samaynay. marka maxaa noo haray Saturday, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday and Sunday. marka waxaan doonaynaa oo iminka halkan noogu haray wuxuu yahay hal maalin oo ka mid ah asbuuca, taasoo ah Tuesday. kaasoo halkan ka bilaabaya. waxaan ka bilaabaya capital letter tabcan. waxaan leeyahay waa talaado. Tuesday. marka waxay isla isticmaalayan kan ay isla isticmaalayan. marka bal aan answer aan idhaahdo mid kasta waa correct. san ayuu isu raacaya ama waa sax. qaabkan ayuu isu raacaya. marka san ayuu isu wada galay. marka haddii aan idhaahdo waxaan eegayaa 3 asaga ayuu ahaa 4 ayaan tegayaa iminka. month of the year. bilaha sanadka. marka bisha ma odhan. bisha haddaan idhahdo waa singular. bilaha sanadka ayaan leeyahay. click on the start button. waxaa halkan yaala January. waa xilliga barafka. tabcan waxay ka eegayaan Europe ayay eegayaan. start ayaan leeyahay. waa January. waa February kan. wuu isbedelayaa. March xilliga ayaa isbedelay jawiga. April ayaa leedahay. April ayaad ugu dhawaaqaysaa. May. June xilligii xagaaga ayaa soo bilaabanaya. July. August ayaa leedahay. September. October. November. December. marka bilihii sanadka sidan ayuu u soo baxaya uu noqonaya December ugu dambayso. waa 12 bil oo sanadka ah. kadib waxaan tegayaa 4 ayaan tegaya waa isaga
5 oo ugu dambeeya ayaan tegaya marka wuxuu ku leeyahay kan waa muhiim waa in aad si fiican indhaha ugu qabataa aad u orda wuxuu ku leeyahay when you click on the start button you will see a number on all months you must click on the name of the month example month 11 equals November wuxuu ku leeyahay xilliga aad riixdid starkan halkan yaalla buttonka waxaad arkaysaa nambaro bilahaas ay ka kooban yihiin waa inaad riixda aad raadisaa indhahana waa in aad ahaataa fast ama aad u dheeraysaa haddii kale wuu kaa tegayaa bal aan ku bilowno waqti yarna waa lagu siinayaa star ayaan leeyahay month 11 waxay noqonaysaa isku dhex qasmaya soo ma jeedid 11 waxay noqonaysaa kan 3 waxay noqonaysaa march 7 waxay noqonaysaa july waa ka isku dhex qasmaya waqti kuu siin maayo july 9 wuxuu noqonayaa September 12 wuxuu noqonayaa bisha December 2 wuxuu noqonayaa January 4 wuxuu noqonayaa April 8 wuxuu noqonayaa August ayuu noqonayaa 8 wuxuu noqonayaa October wuxuu noqonayaa May ayuu noqonayaa 10 kan ayuu noqonayaa June wuxuu February kan ayuu noqonayaa ugu dambeysina wuxuu noqonayaa June ayuu noqonayaa saan ayuu soconayaa marka xilligeeda ku dhamaanaysa weli waqtigiisa waa ku haray risada ay ku sameynaysa mar labaad oo ka eegaysa kaas wuxuu ku tusayaa in aad xasuusatid bilaha sanadka oo muhiima dialogues wada hadalka kan waa muhiim wuxuu ku leeyahay Peter's a family qoyska Peter marka ma dhihi kari Peter family ma dhihi kari it doesn't make any sense macna yeelan mayso marka Peter's a family na yidhahda ama ma dhihi kari haddii aan Soomaali ahay Peter ma dhihi kari waa Peter P mar walba ina barnaa P marka wuxuu ku leeyahay please wait till the movie has a fully loaded marka xilliga aan casharka sameynayo codka waxaan ka dhigay disable ayaan ka dhigay ama waa ka joojiyay sababtoo ah duubista ayuu wuxuu ku sameynayaa interference ayuu ku sameynayaa ama wuu soo dhexgelayaa marka adigu xilliga practice sameyn doontid insha Allah wuxuu ku leeyahay please wait till the movie has a fully loaded ilaa movie-ga uu ka soo buuxsamo click start ku bilow balagaaro halkan yaala move one section to the next meeshaad ka bilowda maahane meesha kale siyaada xilligaada meeshid if the sound does not start automatically click the speaker next to the text haddii codka aad maqli weydo waa inaad riixdaa speakerka ag yaala qoraalka Peter's family iminka waa diyaar waan riixayaa markii aan riixo waxa markiiba ii soo baxaya page kale ayaa ii soo baxaya marka wuxuu ku leeyahay for her school magazine Susie is interviewing Peter a boy from Slovenia listen to their conversation si ay u samayso jaraa'idka buuga yar ah Susie waxay waraysi la yeelanaysaa shakhsigan la yidhahdo Peter waa inan wiil ka yimid waddan Europe ah oo la yidhahdo Slovenia si fiican u dhagayso wada hadalkooda markaan yidhahdo next iminka codod maqlaysa haddii aad tahay ardayga baranaya laakiin anaga waan ka xirnay marka Susie ayaa hadalkii bilowday waxay tiri do you live in the red house at the end of the road calaamad su'aal ma waxaad ku nooshahay guriga cas ee dhammaadka waddadan Peter ayaa laga soo gaabiyey ereyada magacyada waa la gaabiyaa luqadda ingiriiska marka wuxuu yidhi yes I live in that house with my parents and my sister ha waxaan ku noolahay gurigaas aniga waalidkayga iyo walaashayda marka waxaa muhiim ah ereyga luqadda ingiriiska haddii aad rabtid in si wanaagsan aad u baratid ereyga ha cunin luqadda ingiriiska dadka ku hadlay ereyada cuna laba fahmi maayo qofka hadduu ku yidhaahdo yes I live that hadduu yidhaahdo ma ahan waa qalad waa inaad tidhahdaa that waa t in la maqla laakiin haddaad tidhahdid that I'm coming from that haddaad tidhahdid cid fahmaysa male waana qalad marka isla markii wuxuu yidhi we also have a cat and a dog waxaa kaloo nala jooga oo aan leenahay bisad iyo a
Susie waxay tiri, do you take your dog for a walk every day? Maalin walba ma soo socodsiisaa eygaada? Ayay tiri calaamad su'aal. Maya yidhi, no. My father takes the dog for a walk every Monday, Tuesday and Sunday. طبعا iminka waa naqaanaa macnaha Monday, Tuesday and Sunday. Maya wuxuu leeyahay aabbahayga ayaa kaxeeya oo la soo socda eyga maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Axadda. Marka isaga sii hadlay wuxuu leeyahay, and I take the dog for a walk every Wednesday, Thursday and Friday. Anigana xilligan la socda waa maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha. Markaas inantii waxay tiri, who takes the dog on Saturday? Saturdays ma dhihin. Maalinta Sabtida ah yaa soo socodsiiya. Pete wuxuu ugu jawaabay, on Saturday we all go to the park and dog comes with us. Maalinta Sabtida ah dhammaan qoyska waxay aadaan parka ama meelaha gardenska lagu cayaaro, eygana waana soo raacaa. Markaas iminka waxay weydiisay, do you help with the housework? Reerka ma ka caawisaa alaabta guriga sida nadaafadda, alaabta la dhaqo, guriga ma ka caawisa waa housework. Markaas Pete wuxuu ku jawaabay, my mom and my sister do the housework. Hooyaday iyo walaasha ayaa sameeya inta badan shaqada guriga and the cooking iyo cuntada la kariyo, but I clean my room. Laakiin anigu waxaan nadiifiyaa qolkayga. Marka conversationkan waa dialogue, waa wada hadal, laba qof ayaa wada hadlaya. Marka next day aan idhaahdo, waxaa halkan soo baxaya, tabcan waxaad u baahan tahay flash inuu ku jira kan ugu dambeeyo si aad u aragtid sawirka. Do you live? Marka adigu xilliga casharka halkan ayaad riixaysaa oo ku soo baxay do you live? Kadibna in the red house waxaanu ka soo qaadanaynaa casharka ayaa socda weli. At the end of the road. Marka kani wuxuu ku tusayaa hadda sababtu halkan u soo galay waxay tahay halkan ayaad riixaysaa habka loogu dhawaaqo ayaad baranaysaa marka luqadda Ingiriiska. At the end of the road. Do you live in the red house at the end of the road? Kadibna, yes, I live in that house. Marka conversationkiisaan u soconay with my parents. Marka waxaad baranaysaa ereygii sawirka halkan soo galaya haddii flash uu ku jiro systemkaaga iyo codkii oo aad maqashid gabadhii iyo wiilkii wada hadlaya ayaa saan soo baxaya. Marka kaas waan fahnay. Dialogue 2 in the office, xafiiska. Isla sida ayuu shaqaynaya tabcan waa inaad cabaar yara sugtaa ilaa uu ka soo baxo oo flash uu ka soo qaado systemka. Peter Jones waa magac is talking about his meeting with Anne Smith, his personal assistant. Shakhsigan la yidhahdo Peter Jones wuxuu ka hadlayaa qaabilaadda ama is-aragga isaga iyo shakhsiyaddan la yidhaahdo Anne Smith oo ah qof kalkaaliye u ah oo isaga caawiya. Next, Peter Jones ayaa bilaabaya. Marka English ayaan ku wadaynaa. Good morning, Anne, ayuu leeyahay. Subax wanaagsan, Anne. Waxay ugu jawaabaysaa, good morning, Mr. Jones. Ma aragta ma dhihin magaceeda koowaad ayuu ugu yeeray. Isagana waxay u yeertay Mr. Jones. Marka kan waanu baran doona waa muhiim. Waxay tiri, how about a cup of coffee? Marka kan waa muhiim. Markaan idin leeyahay luqadda Ingiriiska contentiga ayaa laga raacaa meesha ay ka soo gasho. Wuxuu leeyahay, how about a cup of coffee? Qof luqadda Ingiriiska si kale u bartay tan dhib ayay ku noqonaysaa inuu fahmo. Ka waran koob shaahi ah ayaa loo fasiraa marka ama coffee ah. Waxay la mid tahay ma dhihin iyada ma u baahan tahay mise ma ku siiyaa a cup of coffee ma dhihin. Waxay tiri, how about cup of coffee? Markaas markuu Peter Jones weydiiyey, how about cup of coffee? Ka waran glass of coffee? Oh, I will make it now. Haddaan kuu samaynayaa ayay tiri. I will make it now. Hadda xilligan jooga ayaan kuu samaynayaa. Kadib wuxuu yidhi, and can you tell me what meetings I have this week? Ma ii sheegi kartaa qaabilaadda ama meetingka ama is-aragga aan leeyahay asbuucan waa calaamad su'aal markaa. Markaas leedahay, I will bring the diary. Waxaan keenayaa buugga xusuus qorka ayaan keenayaa. Okay. Kadib iyadii ayaa hadlaysa waxay leedahay, this afternoon you have a meeting with your accountant at 5 p.m. Galabta waxaad 5 galabnimo balan ala leedahay xisaabiyahaaga ayaad leedahay. Marka waxay tiri, okay, this afternoon you have a meeting with your accountant at 5 p.m.
kadib Anne Smith ayaa hadlaysa. On Wednesday, you're going to London. Don't forget your train leaves at 9:30 a.m. Arbacada waxaad u socdaalaysaa ama aad aadaysaa London. Haylowin trainkaad raaci doontid wuxuu tegayaa 9:30 subaxdii ayuu tegayaa. Peter Jones wuxuu jawaabay, okay, what time is my meeting in London? Xilliga aan kulanka ama qaabilaadda aan lay London waa imisadii waa calaamad su'aal. waxay ugu jawaabaysaa at 11:30 and on Thursday Miss Von wants to talk to you. markan waa muhiim. saacadaha luqadda ingiriiska ama adduunka waxay u shaqeeyaan waxba ma dhihin AM and PM ma dhihin sababtoo ah 11:30 hal kaliya ayaa jirta. marka la iskuma qaldi karo. qofku ma oran karo ma habeenkiiba ma duhurkiiba maalintiiba kuma dhihi karo. saacaddu waxay isbedeshaa tabcan habeenkii midnight. marka tan waa muhiim waana baran doonaa. markaas waxay tiri at 11:30 and on Thursday Miss Von wants to talk to you. markaasuu yidhi who is Miss Von? Miss Von waa ayuu yidhi. markaas waxay ugu jawaabtay she's our new project manager. She starts next week. waa shakhsiga u qaabilsan ama managerka ama mudiirka ah ama shariicda aan samayno waxayna bilaabi doontaa asbuuca soo socda. marka haddii aan idhahdo next dialogue adiga ardayga halkan ayuu kuu soo gelaya. marka dhegayso qaabkay u wada hadlaan. good morning. good morning. marka muhiimaddu waxay tahay ku dhawaaqidda luqadda ingiriiska yeesana. good morning and kadibna waxay leedahay good morning Miss Jones. kadibna how about a cup of coffee? marka kan waa sii raacaysa dialogue waa sii wadaysa. ugu dambeyntii waxaa ugu dambeeya dialogue birthdays dhalashada. marka dhalasho ma aha waa dhalashada. waa a plural. next ayaan leeyahay waxyaal ayaan sugayaa markuu soo baxo. Janet and Pete ama Peter are talking about their birthdays and the birthdays of member of their family. labadan shakhsiya la kala Janet iyo Pete waxay ka hadlayaan dhalashooyinka iyo dhalashooyinka kale ee qaar ka mid ah qoyskooda. marka haddii aan idhahdo halkan Peter wuxuu yidhi hello Janet. Janet waxay u jawaabtay good morning Pete. Peter wuxuu yidhi what is this? waa maxay kan? Janet waxay tidhi this is my daughter's birthday present. Her birthday is next week. kani waa hadiyaddii aan ugu talagalay gabadhayda asbuuca soo socda ayaa ah xilliga dhalashadeeda. markaas Peter wuxuu yidhi and when is your son's birthday? ma dhihin keliya ma dhihi kartid when is your son birthday ma dhihi kartid. son s waa inaad ku dartaa. inta badan waa la qaldaa kan. when is your son's birthday? Janetka waxay u jawaabtay that is not for a while. his birthday is only in August. waqti soo dhow ma ahan. waa xilliga bisha August lagu jiro ayuu noqonaya. marka waxaa laga yaabaa January inay wada hadlayn ayaa laga yaabaa. Janet ayaa isla hadalkii sii wadata waxay tidhi but Mark's birthday is in April. laakiin shakhsigan la yidhahdo Mark tabcan waa wiilkeeda dhalashadiisa waa bisha April. so I need to think about his presence as soon. waxaa muhiim ah inaan ka fikiro amaan u sii diyaar garoobo hadiyaddaan siin lahaa. markaas wuxuu yidhi Pete and when is your birthday? marka mar walba raax ereyga sidaan ugu dhawaaqayo and you repeat again adina ku soo celi. tusaalahaan markaan ku idhahdo and when is your birthday? adaad ku celinaysaa. Janet waxay tidhi my birthday is in December just before Xmas which is Christmas. so of course nobody remembers. markan adigu muhiim u yahay sababtoo ah ereyada la soo gaabiyo taasoo ah waxay tidhi dhalashadeedu waa bisha December intaan la gaarin xilliga Christmaska ama ciid masiixiga intaan la gaarin. marka waxay leedahay tabcan qof xasuusanaya male sababtoo ah xilliyadaas waxay ka wadaa hadiyada ayaa la siiyaa oo Christmaska ayaa la siiyaa cid xasuusta male. markaas waxay tidhi my birthday is in December just before Christmas. so of course nobody remembers. cid xasuusta male. Pete wuxuu yidhi my birthday is in June when we're always on holiday so my family often forget my birthday too.
kan waa muhiim sababtoo ah estan si fiican u eeg my birthday is in June xilliga dhalashadu waa June when we are always on holiday xilligaas adalxis ayaan ku jirnaa waa xilliga xagaaga uu soo bilaabanaya saa awgeeda qoyskayga inta badan often ayuu noqonayaa forgets my birthday too inta badan waa often so my family often forgets طبعا ma dhihi karo forget haddaad dhahdid gebi ahaanba a sentence ku isbedelaya marka forgets my birthday too aniga xitaa qoyskayga way iloobaan xilliga dhalashadeeda sababtoo ah waqtigaas lagu jiro oo June ah waxaan inta badan aan ku jirnaa dalxiis ayaan ku jirnaa marka waa sii bilaabaysaa hello Janet good morning Pete and what's this this is my daughter's waa sii soconaysa birthday present sana ayuu noqonaya marka adigana halkan ayaad riixaysaa codkeed maqlaysaa waad ku celinaysaa sababtoo ah ereyga meesha ayaad ka soo qaadanaysaa luqadda ingiriiska aad baranaysa halkaas ayaad ka soo qaadanaysaa marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh oo beginning ah oo luqadda ingiriiska marka waxaan filayaa in aad saad u aragtaan insha allah aad ku soo ka hadli kartaan oo aad feedback aad soo samaysaan oo aad tidhaahdaan waa cashar aad u xiiso badan aan sii wadayno insha allah marka ardayda halkan ay ka gelayaan waxaan baranay tabcan grammarka functionska vocabularyga dialogues kuwa kaloo badan insha allah waa baran doonaa marka wixii macluumaad mar walba casharkan casharada kale info@sologroups.com ayaad kala soo xiriiri kartaan waxaan baranay luqadda ingiriiska bilowgeeda grammar oo ah naxwe functions oo ah hawlaha waxa la qabto vocabulary oo ah eray bixin iyo ugu dambeysay dialogues oo ah wada hadalka ah wixii macluumaad mar labaad info@sologroups.com anigoo ah maxamed cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu